kulankan waxa isugu yimid odayaasha dhaqanka salaadiinta hooyooyinka iyo dhalinyarada waxaana kala qayb galay mas'uuliyiin ka tirsan golayaasha dawladda federaalka ee Soomaaliya ujeedka loo qabtayna waxa uu ahaa markaas in laga codsado dawladda federaalka ee Soomaaliya inay gacan ka geysato sidii xorriyadooda ay u heli lahaayeen Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici madaxweynihii hore ee maamulka Himan iyo Xeeb iyo Maxamed Cabdi Afweyne oo hadda muddo 5 sano ah ku xiran dalka Belgiumka iyadoo aan wali maxkamad la soo taagin qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee ka qayb galay kulanka ayaa ka codsaday dawladda federaalka ee Soomaaliya in ay markaa xabsiga ka soo deyso labada muwaadin ee dawladda Belgiumka ku eedeysay in ay burcadbadeed la shaqeynayeen in markaas xorriyadoodina dib loogu celiyo tacadiga lagu haystana tacadiga loo geystana laga abaal mariyo oo magdhow laga bixiyo intaasna waxaan leenahay beesha caalamka iyo qaasatan meesha ay ku xiran yihiin dawladda ay xiran yihiin dawladda Soomaaliyeed waxaan u jeedinaynaa baaq ayadana oo xoogan waliba waa mas'uuliyadda ay leeyihiin weeye inay ka geystaan gacan wax ku oola waxaan doonaynaa anagu waxaan qabanaynaa oo soo jeedinaya waxaan qabanaynaa saacadan loo yareyn international waxaan ka dacwoonaynaa maxkamadda Hague waxaan dacwoonaynaa Belgium oo dhan baan dacwoonaynaa kulligood oo dhan ragada isbaarada ku haystaan oo ku xirteen oo xaq darrada intaasaan ku dareynaa midig baan ka taaganay waxbaan ka doonaynaa dawladda waxaan leedahay oo amarada qasadkeeda ka wata haddaad guntiga u dhuuqsataan oo Maxamed Cabdi Xasan Afweyne iyo Maxamed Cabdullaahi Aadan Tiici aad tiraahdaan nimankaas waa in la soo daayaa oo ku guuleysataan haddaad doontaan oo ku guuleysanaysaan ayaguna waa niman ehelkoodana waa dad qiimo leh oo wadanka ku nool ilaahayna weydiin jeeda ummadda Soomaaliyeed oo aan haatan arinta ogaatana magac iyo tixgelin iyo ammaan bay idin magaranaysaa idin qaadaysaa kulligiin caruurta Maxamed Cabdi Afweyne oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa si gaar ah uga codsaday madaxda qaranku in loo soo daayo aabahooda oo xiran waqti dheer xukun la'aan awalan aabe ma meesha xagtalaama aabay waliba oo maanta oo si sacdara loo xiray aniga oo yar la xiray dawladda Belgium xaq dari ku xireen waxa rabaa inay soo daayaan si kastaba madaxweyne Saadiq Maxamed Cabdi Xasan Guutaale madaxweynaha Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xaq codsanaya aabay la soo daayay ayaga la subay Maxamed Cabdi Xasan Afweyne waxaan ka xumaay aabay xaq darrada lagu haysto insha Allah biriyaas oo maxkamadda la xariijina in la soo daayo doon insha Allah dawladana xaq codsanaya garab ku siiso maxkamadda biriyaas insha Allah waxa hadda dawladda Soomaaliya ka codsanayna ugu horeyn madaxweynaha wasiirka arrimaha dibadda ra'iisul wasaaraha xildhibaanada dhammaan waxaan ka codsanaynaa arintaas maadaama aan nahay qoysaskii dib ku haystay in ay arintaas wax nagala qaybsadaan haday hor u maqleen iyo haday dib uga maqleen cod dheer iyo cod gaab waxaan uga codsanaynaa nimankaas sida ugu dhaqsiyaha badan arintooda inay uga hadlaan qaar ka mid ah mudanayaasha golaha shacabka jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya ee ka qayb galay kulanka ayaa ka dhawaajiyay in ay door muhiim ah ka qaadan doonaan sidii loo sii deyn lahaa labada muwaadin isla markaana dawladda inteeda kale ay kala shaqeyn doonaan labada muwaadin 5 sano iyo kalkoos bay xiran yihiin sharci darray ku xiran yihiin caalamkuna waxa weeye dal haduu dambi ka galo meel ka galo waa in dalkiisa lagu maxkamadeeyo lagu soo celiyo inay nimankaas sii deyso haddayna sii deyna dalka dib ugu soo celiso oo dalka gudihiisa maxkamad lagu saaro ma ahan xuquuqul insaanku 5 sano in qofka meel isaga xiratid meel isaga haysatid ma ahan wax badan baa dad Soomaaliyeed ku ildaran ee ku xiran dibadaha oo rag badan oo qiimo leh labadan maanta meesha haliyay waxay dalka ay ka soo qabteen ama magaca ay ku leeyihiin maanta nin walba uu qarsan yahay marka aniga kullayba saaxiibadayda xildhibaanada waa ku kalsoonahay xukuumadana waa wax waajib ku ah ilaa heer madaxweyne in muwaadinka Soomaaliyeed dib kasta meel kasta uu ku haysto in aan loo tagin dalxiis ee la ogaado waxa meesha ku halaysan iyo waxa meesha dib ka yaalo ayadoo mar waliba wax loo qabanayn ay tahay muwaadiniinta Soomaaliyeed markaan soo gunaanado waa la duubanahay waxaanan meel kasta hadaa tiraahdo dariiq istaaga xildhibaanada qaranka waa idin la istaagaynaa warqada saxiixa hadii la yiraahdo waxbaan ka saxiixaynaa xukuumadda Bushgareeya wasiirka arrimaha dibadda uga waca baarlamaanka waa looga wacayaa ma garanaysaa dawladdeena Soomaaliya wasiirada iyo baarlamaanka dhamaanba
inay arrintaas garab istaagaan shacabka Soomaaliyeed ee dhibaataysan iyo labada wiil ee dhibaataysan oo lagu haysto meeshaas sidii lagu soo deyn lahaana falankeeda la qabto annaguna waan garab taaganahay anigu waxaan gudoomiyaha arrimaha bulshada ballan weeyaan in arrinta inaan shido wasiir dawlaha wasaaradda hawlaha guud iyo dib u dhiska xukuumadda Soomaaliya Axmed Cabdi Kaariye ayaa sheegay in golaha xukuumadda uu markaa u gudbin doono baaqa bulshada kulanka isugu timid isla markaana ay ka shaqayn doonto sidii loo sii deyn lahaa Tiici iyo Afweyne dareenkiina waxaan cadeynaynaa mar labaad insha Allah dareenkaan qaadaynaa xukuumaddan geynaynaa wixii aad qoraal iyo ku soo gudbisaan sidoo kale waa geynaynaa waxaana xukuumaddu ay ka qaadanaysaa waajibaadka iyo mas'uuliyadda iyo doorka ay ku leedahay kana gaabimayso insha Allah